Kheyre isagoo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada waxa uu daahfuray imtixaanaadka dugsiyada sare oo maalmahan socon doona. waxaa muuqanayay ra'iisul wasaare Kheyre iyo wasiirka waxbarashada oo mid ardayda ugu qaybinayay warqadaha imtixaanaadka. xasan cali Kheyre waxa uu guul u rajeeyay dhammaanba ardayda maanta u fariistay imtixaanaadka dugsiyada sare isagoo ay sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto tayeynta waxbarashada dalka. waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubbaland u dhaxaysa in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ay galayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeenu uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha Allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada gali doonaan xirfado kala duwan baran doonaan noqon doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan ugu faraxsanahay. waxbarashadu waa sida kaliya oo aan uga bixi karno dhibaatada dalkan ku soo habsatay dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed. macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay wadankani fursad badan ayuu leeyahay. waa sanadkii labaad oo dawladda Soomaaliya qaaday imtixaanaadka dugsiyada sare tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaana tan muujinaysaa in hadda nidaamka dawladnimo uu ku baahayo dhammaan gobollada